السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن ونكسن ذلهانتين بهذا وضيال هاتنا كسر دواده وركي وفيسان وحنا إذا لسعود سينيسا هنبقى رابعة أحمد وحنا مجالة تندير دبسور دويني مرتقى قرح بدن لو سميي وجاس كهبش قد بورسي وجاس عبد الرشيد وجاس رابل وجاس دودي وربحين تاني وحينو فلانقينية وريها يجا عبد الرحمن محمد ugaaska beesha gadaburso oo qaybka xafladii lagu caleemay saariyo ugaaska beesha gurgure ee 54 ayaa ugaaska beesha gadaburso martiqaad iyo sabootin lagu sameeyay hotelka Triangle ee maamulka Dirdhaba waxa uu sameeyay martiqaadkan iyo sabootinga beesha gadaburso ee ku nool ismaamulka Dirdhaba hadaba ugaaska beesha gadaburso ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi ayaa ka hadlay goobta xafladda waxa uu ka soo jeediyay hadallo uu ku furay shirka iyo duco waxaana kamid ah hadalladiisii runtii farxad weyn bay noo tahay waa markii ugu horeysay oo aan Dirdhaba sidan oo kale isku nimaadno marka waxaan in leeyahay soo dhawaada shirkuna inoo furan yahay insha Allah hadalkeena uu dambeeyaa waxaan leenahay shirku inoo furan yahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina muhammad ilaahay hayni barakeeyo kulankeena kula khayr la Allah inooga dhigo ilaahay caafimaad hayna wada siiyo ilaahay intii soo ababshay shirkana caafimaad ilaahay ajr xasanada Allah siiyo mustaqbalka ummadeena ilaahay hagaajiyo wadajirka iyo midnimadeena ilaahay noo adkeeyo dhulkeena ilaahay barwaaqo inooga dhigo ilaahay farxadda maanta ku wada joogno ilaahay noo siyaadiyo ummadeena umida oo isjecel oo walaala meel kasta oo joognaba Allah inoo gargaaro xafladan ay soo abaabuleen beesha gadabursi ee ku nool Dirdhabe ayaa noqonaysa xafladii ugu horeysay ay beesha iyo ugaaskooda ku yeeshaan ismaamulka Dirdhaba isla xafladda ayaa hadalladaas iyo hadal la mid ah waxa ka soo jeediyay Suldaan Cabdi Cabdo Shindayare hadalladiisina waxa kamid ahaa oday Soomaaliyeed baan ahay gudoomiyaha gudida Soomaalida Dirdhabana waa aniga lagu magacaabay kolka Soomaali waxba kama hadhin Dirdhaba qoraka way joogtaa alxamdulillah rabbil caalamiin waxa way waarin lagu farxo Soomaali way baan nahay Soomaali baan kamid nahay beeraha ugu cadcad baan nahay Soomaali ee ugu dhow baan nahay Soomaali baan xajsanayna islaamnimadu way nagu horeysay waxa ku farxaya waxa weeye farxad marnaan iloobaynin inta Dirdhaba joogo beesha gadabursi shirno caara may soo abaabulin isarag noocaani ma dhicin waa taariikh cusub way aan qorayna taariikhda maanta waa in la qoro meel lagu dhajiyay tuka weyna waa sugayna insha Allah waa sugayna kuwa ka weyna waa sugayna waa bilow maanta hoolku bay nama qaadeen waxa ii farxada hoolkan maxaa waxa lahaa yaa la buuxin mise u marnaan doonaa iyadoo loo dhanay hoolkii u buuxa alxamdulillah halkii waa buuxa alxamdulillah taani waa farxad wax lagu farxo weey iyadoo maanta hoolkii buuxo waa farxadda ugaaska waa farxadayda waa farxadda walaalahay waa farxadda Gadabursi waa ta Soomaali intaba waa farxad maanta baartani aad baan ugu faraxsanahay beelaha Soomaaliyeed baan yaa soo gaadhnay waan gaadhnay waan la sibanahay waan maanta maartaanay insha Allah ila koro kacnana ilaahay baa ka rajaynaynaa waxa madasha hadallo wax ku ool ah ka soo jeediyay aqoon-yahan Maxamed Xirsi oo loo yaqaan gacma dheere isagoo baaq u diray Soomaalida Dirdhabe ku nool inay si guud xoog u saaraan ka wada tirashadaan arrimaha danahooda ah waxa hadalladiisii kamid ahaa kan kadib walaalayaal Soomaalidu waxa tiraahdaa farkali falma dhaqdo farkali falma dhaqdo haddii aan la isku dubnaanin la isku tiirsanin la wada shaqaynin la wada sheekaysanin la wada shirin waxna soconaya ma jiro maanta walaalayaal Dirdhaba saan ku joogno waad ogtihiin maanta maalan ka fiican ma jirto alxamdulillah rabbil caalamiin beesha Soomaalida haday tahay beesha Sambana haday tahay beesha Xisaab haday tahay beesha gurgure oo ugaaskoodii afar kontarad aan ku caalam saarnay shalay magaalada Dirdhaba ogtiin wixii ka dhacay marka minis cadowgu markuu naarko uu jabaya cadowga Soomaaliyeed maanta uu jabay
insha allah sidaasayna isugu dubnaan doonaa wax kastoo wada qabsiya oo beelaha Soomaaliyeed ka dhaxeeyana sidaas wada qabsan doonaa duulayda anigu waxaan odhan lahaa in fact ma taqaan hadalka ku darsan lahaa koow afar qodob ayaan u diyaariyay inaan hor dhigo odayaasha beesha Soomaaliyeed ee Dirdhaba degan ugaaskeenu ugu horeeyo afarta qodob oo ah in laga tashado koow ammaanka magaalada Dirdhaba sidii gacanta loogu dhigi lahaa Soomaaliya hadaan nahay laba dhaqaalihii oo burburay oo Soomaali ka burburay sidii dib loogu soo celin lahaa dhaqaalihii Soomaalida magaalada Dirdhabana inaan hor dhigo odayaashaas saddex inaan hor dhigo tacliintii dhalinyarta Soomaaliyeed ay lahaan jireen in dib lagu soo celiyo magaalada Dirdhaba in fact waxaad aragtiin maanta boqolkiiba 80 jaamacadaha Dirdhaba ka dhisan waxa u badani waa dad shisheeya dad Soomaaliyeed ama dhalinyaradu way ku yeerihiin shaqaalaha Dirdhaba Soomaalidu ay ku yartahay maxaa u badan dad shisheeyo badan ama xabaamad mataqaan tuuban kale inaga badan taa waxaan mataqaan aan dalil saarayay waa dhalinyarteena oo degdeg badan oo rabta lacag badan inay markor ku shaqo galaan war Soomaalidu waxa tirada gurguurato waa lagu gareegaara gurguurato waa lagu gareegaara waxa u baranaysan waxa mutacallim waa u qaadanaysan waxa ay inaad mustaqbal fiican mustaqbalkood ka boodisiin waxaad ku ordisiin meel kale ama kilkishanaad ama waar halkan ay taala shaqo halkan ay shaqo taalayan lagaaga badanin xafiiska marka adiga laga qofka Soomaalidu soo gal ku farxaya marka laakiin aad ka baxsadaan ka tagaan Dirdhaba goor ku soo noqonaya halkan bilaasho qofkii wuxuu ku soo noqonaya gogorduweydi marka waxaan leeyahay fadlan dhirta kulatiila koow ammaanka in la sugo laba dhaqaalaha in la sugo saddex tacliinta in la sugo afar iyo caafimaadka in la sugo ayaan kula dadarim lahaa dhalinyarta Soomaalida isla markaana shirkadda soo socdana waan ka sheegi doonaa afarta qodob haduu leeyahay oo watan barnaamijkooda inay duulayaan marka waqtiga oo nagu gaaban darta halkana soo koobay waxaan leeyahay isku duubni iyo midnimo ayaan iska oganay Soomaaliyeed wassalaamu calaykum isla xafladaas quruxda badan waxa hadal ka soo jeediyay Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawil hadaladiisina waxa kamid ahaa suldaanka waxaanu ka soo qayb galnay madashii shalay sharafta mudnayd ugaaska gurgure ugaaska afari kontonaad saynu uga qayb galnay waad arkayseen waxay noo xigaa waxa weeye shirar badan iyo hawlo badan baan ku jirnay shalay ilaa maanta oo ah danteena danta ummadda Soomaaliyeed caawana waxaanu jeclayn inay nila dhamaystiranno laakiin martiqaad ugaas Mustafa ka yimid baan isagana qaabilaynaa inta haddaan ka imaado gadabuursigan Dirdhaba Samaroon waa isku wada mid waa maalin runtii aniga taariikh qaara ii leh waa maalin aan intaan noolahay weligaan iloobaynin weeye inaan la kulmo duqay iyo dhalinyaro iyo haween iyo dad sharafta inta leeg leh oo madasha inta leeg isku soo yimiday maanta taa iiguma jirin inaanu ku kulmi doono halkan waxa weeye sidaas ku agaasinteen odayga Soomaaliyeed ahna uga gadabuursi Samaroon Xaaji Cabdoosh iyo intii la soo agaasnay professorka iyo dhalinyaradana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin